deegaanka Laasteero ayaa 5 kiiloomitir waxa uu dhinaca koonfur galbeed ka xiga tuulada Xumba Weyn oo ka tirsan gobolka Maroodijeex halkaas oo ay ka socotay shaqada dhamaystirka biyo xidheenkaas oo loogu talagalay inuu qaado biyo qadarkoodu dhan yahay 350 oo mitir kuyuubik oo biyo waxaana saakaalkaasi kormeer ku tagay wafdi ay kamid ahaayeen wasiirka madaxtooyada Soomaaliland wasiirka biyaha iyo wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo kormeerkaasi ay ku soo mareen kasoo ay wareysteen injineerada ku hawlanaa dhismaha dhaamkaasi iyo sida ay shaqadu u socotay waqtigaasi gudoomiyaha degmada Laaskeel Mustafa Ibrahim Cismaan oo ugu horeyn ka hadlay halkaasi ayaa soo dhaweeyay waftigaasi halkan joogna waa dhaamkii Laasteero dhaamkan oo anfici doona Hargeysa ilaa deegaamadan dadka jooga oo fadliga dawladeena barakaysan ayuu ugu hawl gashay ee safiirkaasina ka soo shaqeeyay inuu keenan halkan wala socotaan horumarka dalka la gaarsiinayo iyo daacadnimada loogu shaqeynayo dadka meelaha marka maalgashiga laga hadlayo iska hadlee ka dhoodhoolo waxaan u sheegaynaa indhihii caafimaadka qaba oo arkayaan wax la qabanayo injineer Cismaan Axmed Faarax oo isagu ahaa mas'uulka dhisayay biyo xidheenkaas ayaa faahfaahin ka bixiyay biyo xidheenkaasi biyaha uu qaadayo iyo inta uu dhererkiisu dhan yahay buqcadan waa buqcadii loo dooray in dhaamkan laga sameeyo ay inoogu deeqday dawladda Imaaraadka Carabta ay inoogu deeqday waxaanu bilownay shaqadan bishii February ee sanadkii aynu soo dhaafnay iminkana waa arkaysaano waa gabagabo dhaamkan dhererkiisu oo iminka halkan dhabarkiina waa 150 mitir joogiisuna sagxadda halkan dooxa iyo ilaa xaggiisa sare waa 12 mitir ballaadhkiisuna waa 14 mitir oo salkiisa hoose inta ku fadhiyo si aan biyuhuna u qaadi karin ama aanay uga dulboodi karin oo u jabin karin baa loogu talagalay dhammaantii waa wada shub marka waana meeshii ugu dhuubnayd ee dooxan waadigan ku taalay wuxuu qaban doonaa insha Allah markaynu ayaan dhow roobku inoo dooyo Ilaahay raxmadda inoo shubo 350 mitir kuyub oo biyo ah waxay biyo dib u fadhiisan doonaan taqriiban 350 mitir meel imika halkan aynu joogno ka sarreeyay halka biyo dhaafi maayaan wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Baasha Awilo isaguna halkaasi ka hadlaya si weyn ugu mahadnaqay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo isagu Soomaaliland ugu deeqay biyo xidheenkaasi ee dadweynaha deegaankaas iyaguna qayb weyn ka qaatay dhismaha biyo xidheenkaasi marka hore waxaan halkan mahad uga jeedinayaa shirkadda halkan iyadu ka waday shaqada iyadu hirgelinaysay mashruucan dawladda Imaaraadku ay ugu deeqday dalka Soomaaliland sida aad maqlaysaan mashruucan runtii wuxuu qayb ka yahay mashaariic dhowr ah oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu deeqday dalka Imaaraadku waxaana muuqata iminka inuu gabagaba yahay aad iyo aadna waxa mahad koowaad leh dawladda Imaaraadka runtii ah saaxiibka koowaad ee uu leenahay iminka mar walba oo baahi timaado haday abaar tahay iyo haday horumar tahayba ina garab taagan oo mahad celinayna wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirka biyaha Xuseen Cabdi Boos ayaa labadooduba halkaasi ka hadlay dawladda Imaaraadka Carabta waxa ka mid ah dawladaha saaxiibka nahay Soomaaliland ka caawiya mashaariic badan mustaqbalkana kuwa badan inaga caawinaya waxa qorshaha ku jira sad dhaamkan marka la dhameeyeen laba kale la dhiso meel ay ka mid tahay duleedka magaalada Laascaanood meelina ay tahay meelaha deegaanka berbera eeriyooyinkan dooxyada ku soo dhacaan dhaamkan wax badan bayna tari doonaa annagu waxaanu xukuumadaan xoog saaraynaa inaanu dalkan qorshe u samayno oo ah abaarahana maanta wixii ummadda la tari karo caawimo iyo gurmad degdega in la siiyo dhinaca kalena in qorshe lagaga samato baxo biyo la'aanta aynu diyaarsano qorshahaas waxa ku jirta qorshaha 5 sano ee qarankan waa mashaariicda ugu waaweyn biyo xidhina in la sameeyo iyo ceelal dhaadheer xukuumaddu oo garwadeen ka yahay Axmed Maxamed Xamuud Siilaanyo dadaal badan bay shacabkeeda ugu jirtaa sida idin muuqata oo ay wax qabad bay diyaar u la tahay buuxa kan kuwani kulay kuma horayaan mar dambeeyaan hore ku horena waa jireen laakiin waxay tusaysaa astaan wanaagsan oo wax qabadkii kamid ah weeye Maxamed Kuraase Home Cable TV Hargeysa